غير ودين سلام يا سلام كدب waxaan rabnaa inaan halkan uga falanqono guurka ku saleysan siyaasadda argosiga marka halka taagan tahay hadii jawaabteedu ma tahay waxaan rabnaa inaan su'aal ku weydiino maxaa niyadaada ku soo dhaw markaad maqasho guur ugu yaraan gabar iyo wiil isjeclaa is guursaday ama gabar iyo wiil si qasab la isku daray ama gabar nin oday u guursatay lacag darteed laakiin dhammaan kan uu ka duwan yahay waxaan halkan uga faaloonaynaa arinta milyan rooble ee dadka badankooda reaction ka bixin si ka duwan sida dadku uga hadleen marka aynu soo qaadanayna milyan rooble waxay ahayd gabar aad u furfurcoon waliba waxay soo baxday gabadhan 2017 eeriyadeeda xilligaasna waxa xukunka hayay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha hore dalka Soomaaliya waxayna kamid ahayd gabdhaha aad ugu furfurcoona social media xagga mucaarad balilada muuqaalkan adiga maxaa kula gudban inta caqliga leh ee hawiye ee madaxda ee mucaaradka ee shacabka adiga maxaa kula gudban sidee xalku keeni kartaa dadkaaga iyo dalkaaga hawiye oo soo ku badbaadin kartaa muuqaalkan sida aad ka daawateen gabadhan waxay ahayd mucaarad xilligaasna ay soo baxday laba siyaabood dadka qaar waxay ku dhaliilayeen inay qabiilista tahay dadka qaarna waxay ku dhaliilayeen inay gabadhan ay tahay qof siyaasadda taqaano ay culusna ku tahay dawladda xilliga taagnay waxay kamid ahayd gabadhan dadkii abaabulay ama qurba joogtii abaabushay shirkii midilood hiraab aad iyo aad u ololeeyay sidii shirkan u qabsoomi lahaa inkastoo jalaafooyin fara badan shirkan loo soo dhigay dhibaato mar walbaba uu qabsoomi lahayba laakiin dadka u dhabar adeegay abwaanad milyuunay aad ka mid tahay dhahay mudulood waa inuu shirkiisa qabsoomo shirarka waa inay qabsoomaan wacyigelinta aad wadeen wanaagga aad wadeen maanta miro ayuu dhalay dib walboo soo dhacayba maanta miro uu dhalay shirka waa furmay ummadda oo dhan waxaan leeyahay inta wanaagga jecel hambalyaan leeyahay inta ku faraxsan hambalyaan leeyahay markaynu ka hadlayna gabadhi milyuun ahayd soo baxday 2017 maqaamka noocan ayay lahayd laakiin 2021 waxaa isbedelay wax walba iyada ku salaysan ugu dambeyn gabadhu way guursatay 2021 bisha shanaad ilaa bisha lixaad waxayna guursatay nin isku heebiyiin madaxweynihii hore dalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo qabiilkiisana ay si aad u can jirtay meeshii laga sugayay hambalyo commentigeed waxaa isqabsaday ku digasho ugu dambeyn annaga nacan jirtay maantana annaga hoos jifta ay qarra balse gabadhi muddo ay wax ka maqnay social media wayna soo laabatay laakiin waxa ku soo laabatay iyada oo si aad u caynayso qabiilada ay ka dhalatay sida hawiyaha marka laga soo bilaabo abgeelka habar gidirta bal ila daawo iyadoo mursadana galayso weliga mursada faqurxoon maar nolosheedu waraabada dadasaan u eegin saan wallahi billahi tala fiir qofka mursada madaxa ka fiir daamanka ka fiir dhabarka ka fiir qofka mursada daa lugahana ka fiir meel kale ha ka aado lugama daleeqa waraaba la leeyahay dhabar jabana la leeyahay sidii waraabaha waxaa leeyahay madax waraab fiir xas calqeena arag kulligood arag naaqooda nimankooda ma jiro qof mursada oo bini aadam oo eg ma jiro bini aadam ma uu ekabo amarka ilaahay naga raaliqda mursado laakiin barnaamijka muhiim u tihiin laakiin waxaanu rabnaa inaan mar labaad isweydiino arrintan guurka wuxuu ahaa guur ku salaysan siyaasadda argos bal ila daawo muuqaalka mar labaad malay maqlaa أنا سيف أنا أكون مقلنا ناكتب بعاري كل الله بالك أفاري بدنا الشيك gabadha waxay leedahay sheeg afaarihi oo bacaari arintay yani waa afaar ama barnaamij markaas la isla ogaa laakiin dadkaysan ogeyn ayay ka hadlaysaa gabadhan bal aynu sii daawano mar labaad waa naagtii tiri maxaa isticmaashaa wadaad baa tahay intaa rabtaa isaarnaanaysaa ninkan imanku labadii nin hore soo martay labada ninba diiq bay ahaayeen bay tardiiq saasay biyaha igu daadinayeen lagu yaqaan nimanka marraxaan baa lagu yaqaanaa nimanka marraxaan adeer iga dignaagtan kaga yerisiiyey waa daalay waxay iga daba ordaysaa adeer dadka qaar waxay yiraahdaan milyuun ninka ay kala tageen wuxuu ahaa dabaal halka dadka qaarna ay ku sheegeen wiilka iyo gabadha isaga koolku saaran ayaa ka caqli badiyay markaan si deganaan u dheegano ama inuu dhageysano hadaladooda gabadha iyo wiilka waxaanu halkan ka dhaminaynaa inay ahaayeen waxaan qorshe iyo ujeed loogu talagalay hase ahaatee bulshada Soomaaliyeed qabiilku way ku kaftami jireen ama isku dacayadayaan laakiin darajo noocaana weligiis ma soo gaarin waxaan isweydiinaynaa su'aal kale dadku sidaa miyay ku kala tagi doonaan mise arrintan xalmarin weyn ayaa laga bixin doonaa gabadha ogsoonow adigana inuu jiro guurka qayb ka mid ah siyaasadda argosiga waana qayb ugu cusub laakiin hadda ayaa barat barnaamij midkan lamid intaanu kulmi doono sidaa nabadgelyo